marka waxaan u dhalinyarta waxa la yiraahdaa inta badan waxa wax bedela dhalinyarta baa la yiraahdaa dhalinyartu aadna wax u barat waxana ma bedelin hadda kadib yaanan ka dayrin waxba ma bedelin dhalinyartu sababtu maxay tahay ay wax bedeli waayeen idinka is weydiin doona laakiin waxaan oranaa dhalinyaradu magaalada iyada leh boqolkiiba 5 baa dhalinyaro ah nabadgelyo xuma haday dhacdo iyaga ku dhacdaa dhaqaalo hadduu kobci lahaa iyagu u kobcaya raggan waaweyn waxaan u maleynayaa waa la iska sii socdaayo halkan gurigan aad aragteen ee baliga ka shisheeya baa lagu socdaa badanaa dadka waaweyn baa dadka sii horeynaya weeye waxaan oranaa dhalinyarta baraaruga koobaad aad kula talinayaan waxa weeye qabyaaladda inaad iska daysaan qabyaaladii haddaan idhaahdo inteena masaajidka ku jirta 12 bilood baynu dabagal isku samaynaynaa qof qabyaaladaysta ah oo qabyaaladu caadifadaysan oo la reer hebel baa qof naga dilay oo la reer hebel baa sida naga yeelay inteenaas haddaan idhaahdo aynu dabagal isku samayno ha la soo qoro ciddii qabyaalad lagu arko waxaan u malaynayaa in laynagu heli doono markaan dabeecaddii soo shaqayn jirtay aan ku shaqeey waxaan oran qabyaalad wax xun wey qof kastoo qabyaalad ka shaqeeya innagu hadda waxaa laga yaabaa dad badan oo caan ku ah qabyaaladda inay ka shaqeeyaan inaynu naqaanaa suuragala waxaan leenahay ha laga toobad keeno wax macno ay leedahay ma jirto inta dhagaysanaysa iyo inta maqlaysa waxaan leenahay ha ka shaqayn qabyaalad mid gudaheena ayaynan ka shaqayn mid derisyada aan ayaynan ka shaqaynin qabyaalad aynu iska dayno aynu midowno aynu khayrka u midowno aynu nabadda u midowno aynu diinta u midowno aynu horumarka u midowno aynu jidadka u midowno saasaan kula talinaya ciddii yeela waxaan leenahay ilaahay ciddii yeesha allaha barakeeyo ciddii ka shaqaysa qabyaalad oo reer buu hodla kala qabyaaladaysa ama dadka islaamkaaba qabyaaladiisana waxaan leenahay allaha soo hanuuniyo ayaan leenahay waxaadna ogaataa qofkii ka shaqeeya waxaasow waxaad doonta noqo waxaad ka shaqaynaysaa wax xun ogow waxaad ka shaqaynaysaa inaadan faa'iideynin waxaad ka shaqaynaysaa carruurtaadu inay xumaato waxaad ka shaqaynaysaa inaad silic ku dhimato waxaad ku shaqaynaysaa balaayooyin aadan garanaynin meesha ay soo marayaan inaad heli doonto oo ay dhaxal kuu noqon doonto saasaanu leenahay waxaan ku dari lahaa kelmad kaftanahoo sheekh cabdiwaaxid iyo culimmadu waxay yidhahdeen jidad ha la sameeyo su-aalo badanna halkan waa la isweydiinayey gobolladan hadda aynu deriska nahay dhammaantood waxaa laga wadaa laamiyo kuwa dhexdooda mara oo tiro badan qaar baa waxaa laga yaabaa 5 sano u dambeeyey in laga sameeyey 30 laami ama 40 laami dhexdooda magaalooyinka dhexdooda weeye xoolahaas lagu dhisayana waa xoolo Soomaaliyeed waa xoolo aan wax ku leenahay sheekh ma la isu qabsanaya horta xoolahaas ilaan waxa la rabay waxa inaynu qaybsano wixii naga dhaxeeyay waxaan oran lahayn xoolahaas horta wixii anagu aanu ku lahayn laamiyadaas waxaan leenahay qaybteennii halano ergaha la naga qaado bolorta marka hore wixii aan ku lahayn halana siiyo si wadadan aynu noogu wada dhisno taasi waa inta kaftan aan ku daro marka waxaan mala laga yaabaa inaan la ogolayne kuwa dambe soo socda hala noogu raanado hal war qoladaasi horeyba waxaydii aynu uga waxaynay hadda aynu u badino wadada insha Allah taala waxba ka bilaaban niman khayr qabayaal la yiraahdo buuhooda support group ayaan ka warhayaa inay ku hawshaysan yihiin iyo gabdhaba kolley dadaal bay wadaan waxaan oran lahaa iyagana hal caawiyo inaguna waa sida la sheegay aynu cid haynoo soo direen iyagu dabadna aan bixino geela iyo adhiga iyo lacagtaba aan bixino wadada aan samaysano culimada iyo cidda waxay naga maqayna waxaan leenahay nala sameeya waayo haddii la sameeyo waa wada maraynaa oo wadadu waa inaga dhaxaysaa wada aynu wada leenahay weeye magaalada Buuhoodlana dadkoo dhan waxaan u sheegaynaa in la wada leeyahay Soomaali oo dhan meel kasta doon joogto waxaan oran lahaa hal la yimaado hal la dhisto maxay ahayd hal laga ganacsado hal laga shaqeeyo hal laga shaqeysto kastana waa la diyaarinayaa waad ogtihiin oo meeshani kastan baa hadda laga wadaa in ay dekad noqoto inay saylad noqoto
in xooluhu ku kala wareegaan dadkoo dhan waa ugu baaqaynaa buuhoodle oo la wada leeyahay oo magaalo Soomaaliyeed cid kasta adeegi karto ayaanu idiin haynaa bishaaradana taana waad naga qaadi doontaa insha Allah taala idinkana waxaa la idinka rabaa reer buuhoodlow khayrka iyo wanaagaas idinka muuqda inaad hanataan oo aad ogaataan qof kasta oo magaalada yimaada inuu wax idiin soo kordhinayo qabyaaladan yar ee dadkii la kala gurayo ee tuulooyinka loo kala samaynayo yar yarka ah ee la sii kala fadhayo